من مواتي معاه موافق له هلا مقام له قاري كرو ميا ميا منما كما مرني الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan Soomaali weyn idil ahaantiin meel kastoo dunida iyo caalamka aad ka joogtaan waan idin salaamahayaa. magacaygu waa Sayid Ukaash Yunis Soomaali, anigoo ku hadlaya magaca Riida Dhalinyarta Soomaaliyeed. waxaan maanta idin soo jeedinayaa mowduuc aad iyo aad xasaas u ah ummadda Soomaaliyeed, wuxuuna ku saabsan yahay qabyaaladda Soomaalida la degtay, asalkeeda intuu kasoo bilowday iyo xilliyadii ugu faafistaanka badneyd. intaan mowduucan ku guda jirno waxaan dul istaagi doonaa dhowr qodob oo kale ah: number 1, qabyaaladdu shimay kasoo ifbaxday dunida; number 2, hadmaa Soomaalida dhexdeeda laga dareemay; number 3, maxaa loo liidayaa bulshada Soomaaliyeed qaarkood. haddaan ku hormaro number 1 oo ah qabyaaladdu shimay kasoo ifbaxday dunida. qabyaaladda ama kooxaysigu ilaa hadda lama hayo xaqiiq ama asal xilli uu soo bilowday, laakiin sida muuqata oon wada ogsoonahay waxay soo jirtay xilliyo hore, balse markaa waxaa isku qabiil ahaa keliya intii isku diin ah ama caqiide ah, balse isku bedbedelaysay waxay gaadhay in laba qofood oo isku diin ah, isku dad ah, is-cunsureeyaan. haddaan ina isdul istaago hadmaa Soomaalida dhexdeeda laga dareemay qabyaaladda, iyadoo ahayd Soomaalidu kuwa ku saleeya dhammaan dhaqamadooda bulshadeed kuna gorfeeya xaajooyinka. haddana kamaysan marnanin inuu gumaystuhu labalaabay dhibaatadii qabyaaladdu ay lahayd, ilaa markuu soo galay gumaysigii Soomaaliya. markuu arkay ummadan kala qaybsan, midba degaan qaas ah samaystay, aanan isku xadgudbayn, iskuna maqam ahayn, wuxuu isku dayay inuu dhexdooda isku diro asigoo adeegsanaya jawaasiis Soomaali ah, asigoo abuuray qalbi fiyoobi la-aanta ilaa hadda Soomaaliya ka jirto. balse maalinba maalinta ka dambeysay, sanadba sanadka ka dambeysay, dhaqanku ka xun yahay baa kusii kordhayay qabyaaladda Soomaalida dhexdeeda. taariikhda bini aadamka lama sheegin qof loo gubay liajli maxaad qabiilkaa uga dhalatay, liajli maxaa qabiilkaa liidan uga dhalatay ilaa Soomaaliya mooye. balse waxaa nasiib darro ahayd in laysku diido inan isku qancay inay iscalmadaan because of shaqadeeda ama shaqadiisa. waa nambarka ugu dambeeyay number 3, maxaa loo liidayaa walaalkeen. waa halyey, waa hiboole, waa cilmiyahan adiga kaa cilmi badan, aniga iga cilmi badan, waa naqshadyahanka keliya, waa farsamayaqaanka keliya ee u taagan sida weel qurxoon amba labis qurxoon uu dalkeena iyo dadkeena u soo saari lahay. bal waxaan ugu abaalgudnay inaan liidno oon iska hoosiisiino because of waqtigooda farsamo geliyey, halka annaga aan iskaga maalayacni u joogno maadaama uu haddaba walaalayaal, intaanan ka bixin barnaamijkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa maanso yar oon ugu talagalay qabyaaladda iyo maaragtay waxyaabaha ay tahay. marka insha Allah dhageysi wacan. qaran kabsasho rabiyo dad kala qaybsan baan arkaa, qoys wada dhashiyo rag kala qabweyn baan arkaa, qaaliqaan caabudnaayiyo dhiig qubtaan arkaa. inaan sugaankiin qoriyo maahan qasadkuye, muhiimadda qaanuunkiyo Soomaalay qaata oo qabyaaladda rabteeda ku dhaafa. qabiil hadduu qiimo leeyahay ama qaayiyo lagu gaarayo maqaam sare, 30 sano iyo qadaadiic qaxar iyo dhibaato wixii qorsna soo maray qaadir nooma sababeen. inaan sugaankiin qoriyo
maahan qasadku iyo muhiimadda qaanuunkiyo soomaalay qaata oo qabyaalada rabteeda ku dhaafa. qashin iyo duumo weeyaan, qud shaydaan iyo qoryo naareed weeyaan, muhiimadda qaanuunkiyo soomaalay qaata oo qabyaalada rabteeda ku dhaafa. mawduucayga maanta intaa baan kusoo koobayaa. insha allah waxaa idinkaga tagayaa su-aal jawaabteeda laga rabo qof waliba damiir soomaaliyeed leh. midda isweydiinta mudan waxay tahay, hadday u aragnay hanka iyo howlkarnimada walaalakeen maxaan ugu daya weynay si aan ula